بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiintan ah what is a microfinance. Microfinance waxaa sidoo kale loo yaqaanaa microcredit, microloan, microlending. haddii aad maqashid intaas oo dhan waa isku mid. Microfinance waa hay-ad maaliyadeed oo bixisa deymanka yaryar, caymiska iyo koonto dhigaal ama saving account. adeegyadana waxaa loo qabtaa dadka danyarta ah ama aanan bangiyada caadiga ah ka heli karin adeeg maaliyadeed. hadafka ama ujeedada laga leeyahay microfinance-ga waa inay gacan qabato awood siisana dadka saboolka ah, sidoo kalena dardar geliso horumarinta dhaqaalaha iyadoo adeeg maaliyadeed siinaysa dadka saboolka ah oo aanan bangiyada caadiga ah ka heli karin adeeg bangi. ogowna marka dadka danyarta ah deyn la siinayo lagama qaado wax rahan ah. tusaale hay-ad bixisa adeega microfinance waxaan u soo qaadan karnaa Grameen Bank oo uu aasaasay Dr. Maxamed Yunis horaantii 1970-maadkii laguna aasaasay dalka Bangladesh. haddaba Grameen Bank waxa uu xoogga saaray inuu deyman siiyo dadka danyarta ah, khaasatan dumarka. badina deynta la bixiyey waxa ay ku sineed $20 haddii aysan ka yareenba. deymankaas waxa ay dumarkaas u suurto gelisay inay bilaabaan ganacsiyo yaryar sida inay gadaan walxaha lagu soo saaro farsamada gacanta, inay gadaan wax soo saarka beeraha iyo wixii la halmaala oo u suurto gelinayay inay sare u qaadaan dakhliga qoyskooda. Grameen Bank waxa uu horseeday ama hal abuuray fikirka ah group lending, midaasoo ah koox danyar ah inay deyn wada qaataan oo ayagii ay rahan isku noqdaan, oo haddii ay dhacdo in qofkii deynta qaatay uu bixin waayo in kuwii kale ay bixiyaan. waxaana loo yaqaanaa group lending ama social collateral system. ilaa iyo hadda fikirka Grameen Bank waxaa laga dhaqangeliyey wadamo kala duwan oo waxa ay awood siisay in dad badan ay ka baxaan saboolnimada. oo Grameen Bank waxa ay weli wadaa inay gacan siiyaan dadka danyarta ah oo aanan heli karin gacan qabasho haddii Grameen Bank oo kale aysan jiri lahayn. markana aan isla aragno sifooyinka muhiimka u ah microfinance-ga. 1. waxa ay bixiyaan deyman yaryar ama adeeg aysan danaynaynin bangiyada caadiga ah inay u qabtaan shacabka. haddaba hay-adda microfinance-ga lacagta deynta ah ay siinayso dadka danyarta ah waxa ay u suurto gelinaysaa inay ku bilaabaan mashaariic yaryar oo ay sare ugu qaadi karaan noloshooda iyo midda qoyskooda. 2. collateral free. marka dadka danyarta ah ay deyn qaataan lagama qaado wax rahan ah, waayo waxaa dhacda in aysan haysan hanti ay u dhigi karaan rahan ahaan. 3. waa group lending ama deynta in la wada siiyo koox yar ama group, oo haddii ay dhacdo in qofka deynta ku qoran uu bixin waayo waxaa laga rabaa kuwa kale ee ka tirsan groupkan, waana qaab loo damaanad qaadayo dib u bixinta deynta. 4. financial education. hay-adaha microfinance-ga waxa ay tababar maaliyadeed siiyaan dadka danyarta ah ee deynta qaadanaya si awood loogu siiyo inay maamulaan lacagtooda oo ay u gaari karaan go-aan maaliyadeed oo toosan. markana aan isla aragno tusaale si aan u fahanno sida ay microfinance-ga u shaqayso. aan dhahno dumar ku nool meel tuulo ah ayaa rabaan inay noloshooda iyo midda qoyskooda horumariyaan, oo waxa ay rabaan inay sameeyaan ganacsi bixiya adeega dhartolidda ama harqaan, balse ma haystaan wax lacag ah. sidaas darteed hay-ad bixisa deymanka yaryar ama microfinance-ga ayaa koox u qaybinaysa dumarkii ayadoo loo fiirinayo in ujeedadooda ama ganacsigooda uu isku mid yahay. aan dhahno 5 dumar ah oo wada degan tuuladaas ayaa waxa ay leeyihiin ujeedo ganacsi oo midaysan. haddaba qof waliba waxa uu xaq u leeyahay inuu deyn soo qaadan karo si uu ugu maalgashto ganacsigan. sidaas oo ay tahay waxaa la raacayaa nidaamkan. 1. loan application. aan dhahno qof ka tirsan 5tii dumarka ahaayeen ayaa soo dalbanaysa deynta $1,000 ah ayadoo matalaysa groupka oo dhan. 2. group guarantee. 4tii kale ee dumarka ahayd waxa ay ballan qaadayaan si wadajir ah inay deynta ku bixin doonaan
xilligii loogu talagalay oo haddii ay dhacdo in mid ka mida 5 dumarka ahaayeen ay bixin weyso qaybteedii ayaga in ay bixin doonaan maadaama ay deynta wada qaateen 3 loan disbursement haddaba markay hay-adda microfinance-ga ay ansixiso ama ogolaato deynta waxaa lacagtii loo fasaxayaa dumarkii si ay ugu soo gataan harqaankii oo ay ugu bilaabaan ganacsigoodii 4 repayment dumarkii deynta qaateen waxaa laga rabaa inay deyntii ku bixiyaan xilligii loogu talagalay oo ay bixiyaan ra'sumaalkii iyo dulsaarkii intii kaga soo aaday bil waliba oo deynta waxaa lagu bixinayaa bil walibaba qayb haddaba waxaa la gaarayaa in la arko saameyn dhaqaale ha ahaato midii qoysaskooda ama midii tuulada ay deganayeen gunaanad microfinance waa aalad loo adeegsado in lagu gacan qabto dadka saboolka ah ama danyarta ah si noloshooda iyo midda qoyskoodaba sare loogu qaado waxa ayna si fiican ugu habboon tahay inay haqabtirto ama u adeegto dadka aanan heli karin adeegyada ay bixiyaan bangiyada caadiga ah sidoo kalena rabaan inay noloshooda horumariyaan xog dheeraad ah oo ku saabsan financial institutions financial literacy financial inclusion saving account collateral insurance fadlan ka dhegeyso lifaaqyada hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo